tahay soo wada dhaweeyo waxa weeyaan qarankan in badan buu amanaa maalgashi caalamiya runtiina waa tahay maanta laga faa'iideysto dekada berbera ma aha markii koowaad lagu sameeyay maalgelin waxa jirtay maalgelin hore oo la sameeyay waxa dhacday 1968kii waqtiga waxa maalgeliyay waddanka loo jeediyay Soofiyetiin isla mar ahaanta waxa dhacday 1984kii wax mar labaad dekada berbera casriyeyn iyo balaarin ku sameeyay waddanka Mareykanka sidaa darteed dekada berbera waa u baahan tahay in la casriyeeyo waana muhiim waxa jirta sababaha ugu baahantay bal waxaan isbarbar dhigaynaa dekedeena iyo dekeda wadamada jaarka ee waddanka ugu dhow Djibouti oo 25 sano u dambeeyay helay maalgashi caalamiya dekeda berbera waxay ka mid ahayd dekadaha ugu horeeyay Geeska Afrika muddo badan isla mar ahaanta 25 sano u dambeeyay laguma sameeyay wax maalgelin bal aan soo qaadano sanadkii 2014 dekeda berbera inagoo barbar dhigayna dekeda Djibouti dekada berbera 2014 waxa ka soo degay 26260 container ayaa ka soo degay dekada aan jaarkanahay ee waddanka Djibouti waxa ka soo degay 910,160 waa dareemi kartaa farqiga u dhaxeeya labada dekedood marka taa Djibouti badan sababta u baateen wax kala ma aha waa casriyeynta iyo maalgelinta la sameeyay halka waxay nooga cad inay 5 jeer ka badan tahay ما دكتك بالبروح حكسو دقي إن دكتك جبت كبانتي وشدك لو ما برنا وحويان وما قلت له سمي دكتك جبت له سمي شنو مركها وبانتي دكتك بالبرنو دكتك بالبرو بانتي ما قلوا بانتي تصالك عليه دكتك بالبر إسلا سنة كان لو كنا يفرط طبعا وحكسو دقي تضرب بقول يتطبعن سويت شنا مراكب الدويو أي يمي وصح ده هل كدكتك جبت أي صح دين كون استقعد بقول يستح مركب يدوي سويت ده ودريمي كرتا انت مركب idooyada ka yimi inta isdirihiin marka dekada berbera waxyaabaha ugu baahan tahay maanta maalgelinta waxa kamid qodobada sida waxa